kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan kula wadaagayaa xog xasaasi ah. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo la filayay in maalnimadii shalay ahaa uu soo saaro liiska magacaawista madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uu gudbiyay oo uu rabo inuu ku soo daro liiska golaha wasiirada iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan. balse shalay meeshan dhicin in magacaawistaas ay soo baxdo isla markaana waxa shirkii golaha wasiirada shalay looga hadlay arrimo kale oo quseeya dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo sidii loo dardargelin lahaa. balse Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa maanta la filayaa in uu soo saaro liiska magacaawistaas ee golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada qaybahooda kala duwan. sidoo kale Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa la filayaa in uu soo saaro amarro culus oo ka dhan ah dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo sidii loo xoojin lahaa howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab. xogaas ayaa rabaa inaan kula wadaago haddii ay tahay markii warta soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ila channelka like ni saartid iyo share gelisid si aan u helno saaxiibo badan adigoo kale aad iyo aad u maasantahay. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo kulan xasaasi la leh maanta golaha wasiirada Soomaaliya ayaa la filayaa in uu soo saaro liiska golaha wasiirada cusub la filayo in lagu soo daro dhawaan golaha wasiirada isla markaana la filayo in uu saacadaha soo socdo uu ku dhawaaqo. sidoo kale waxaa la filayaa in Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu soo saaro liiska taliyaasha ciidamada qaybahooda kala duwan in dhawaalaha soo baxaysay in la isku shaandhayn doono ama isbedel lagu sameyn doono taliyaasha ciidamada qaybahooda kala duwan maadaama howlgalladii ka dhanka kooxda Al-Shabaab ay soo xoogeysteen isla markaana ay Al-Shabaab bilaabeen in ay dib ula wareegaan meelihii hore looga saaray. balse dowladda federaalka Soomaaliya oo arrintaas ka duulaysa ayaa dib u xaqiijin iyo dib u habeyn ugu sameynaysa maalmihii la soo dhaafay saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan waxaana la filayaa in maanta ugu dambeyn la soo saaro liiskaasi iyadoo la filayo in lagu soo horeysiyo magacaawistaas taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliyeed Mahad Maxamed Salaad oo la filayo in lagu bedelo Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe oo hadda ah taliyaha nabad sugidda Soomaaliya. dhanka taliska ciidanka xoogga Soomaaliya waxaa la filayaa in abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed loo magacaabo Cali Jeyte Cismaan maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu goor sii horeysay sheegay in guud ahaanba meesha laga saari doono ama laga taqalusi doono waxa loogu yeero taliska ciidamada lugta Soomaaliyeed taas oo lagu bedeli doono abaanduulaha ciidamada xoogga Soomaaliyeed oo loo magacaabi doono Cali Jeyte Cismaan sida maalmihii la soo dhaafay xoga soo baxaya ay sheegayeen. arrintan ayaa Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre waxa kula dardaarmay inuu sameeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xalay uu dhoofay dalka Uganda kaga qayb galayo shir u dhaxeeya dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo goor sii horeysay magaalada Kampala ka degayo oo halkaas si weyn loogu soo dhaweeyay ayaa Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu dhiibay magacaawisidaas waxaana la filayaa in Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre maanta galinkii dambe uu ku dhawaaqo magacaawisidaas maadaama howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ay hadda u muuqdaan kuwo istaagay gabi ahaanba ay Al-Shabaabna markoo dhankooda soo xoogeysanayeen iyadoo ay xusud maanta in Al-Shabaab shalay ay weerar gaadma ah oo aad u culus ay ku soo qaadeen deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo ahayd fariisintii labaad ee ciidanka xoogga Soomaaliyeed ugu weyneed ayna ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa rabtay in sidii aadan iyo walaal kale inay ula wareegto deegaanka Wargaadhi balse ciidamada halkaas ku sugnaa oo ahaa kuwa fuujigan isla markaana u diyaarsan inay ka hortagaan weerarada gaadmada kooxda Al-Shabaab ayaa ka hortagay waxaana halkaas jab culus lagu gaarsiiyay kooxda weerarka ku soo qaaday. si kastaba saacadaha soo socda waxaa la filayaa in Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku dhawaaqo magacaabisidaas iyo isku shaandhayn lagu sameynayo golaha wasiirada. dhanka golaha wasiirada isku shaandhayn lagu sameynayo ayaa iyadana waxaa qayb ka noqon doona in la filayo in la bedelo guud ahaanba wasiirka cusub ee mar dhow loo magacaabo wasaaradda gaashaandhigga iyadoo lagu bedeli doono wasiirka arrimaha dibadda ninka hadda ah Axmed Macalin Fiqi oo la rajeynayo in loo weeciyo dhanka wasaaradda gaashaandhigga. dadka badi waxay isweydiinayaan waxa uu ka goyn karo Axmed Macalin Fiqi wasaaradda gaashaandhigga maadaama wasaaradda gaashaandhigga ay tahay wasaarad ku shaqo leh arrimaha ciidamada iyo taliska ciidanka xoogga Soomaaliyeed maadaama ciidamada xoogga Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ugu badan ee qaybta ka ah howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab. dadka badankoodna waxay isweydiinayaan weli waxa Axmed Macalin Fiqi uu ku soo kordhin karo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. kuwaas iyagana waa su'aalo u baahan in looga jawaabo bulshada Soomaaliyeed ay isweydiinayaan waxa Axmed Macalin Fiqi uu ku soo kordhin karo wasaaradda gaashaandhigga maadaama wasaaraddu ay tahay wasaarad arrimaha ciidan ku shaqo leh isla markaana u diyaarsan inay ka qayb qaadato isla markaana hogaamiso howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab. hadda inta ay la soo gaartay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe channelka like na saartid si aan u helno saaxiibo badan oo adigoo kale aad iyo aad u maasantahay.